السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta casharkeena waxaan kusoo qaadan doonaa proverbsna af Soomaali waxaa lagu dhahaa mahmaahyo ayaa lagu dhahaa. marka intaanan casharkeena u yara gudagelin waxaan ka codsanayaa qof walba oo muuqaalkan arko in uu la sii wadaago walaalihiisa islaameed ee Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan dhalinyarta hadda jirto ama dadka da'da hadda soo kacayo inta badan si qaldan ay u isticmaalaan maxaa la jiray mobiladooda iyo maxaa la jiray qalabkooda yimaada sida kombiyuutarada kaleeto ama waqadka guud ahaan si qaldan ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan. balse haddii aad video la sheegarayso casharadan aad maxadda u sii dirto si wanaagsan ay u noqonaysaa way faa'iideysanayaan. marka intaas waxay iga tahay dhiirigelin. casharkeena marka haddii aan u gudagalo maanta proverbs waxaan dhahnaa waa mahmaahyo. mahmaahda koowaad ee aan soo qaadanayno marka ingiriis bay inuu qoran yihiin waxaan u fasiri doonaa af Soomaali insha Allah. Okay, number 1, truth cannot overtake a propagated lie. Truth runta cannot overtake kama hormari karto a propagated lie been faaftay. yacni beenta haddii ay faafto run kama hormari karto. marka mahmaahda ku aadan ee af Soomaaliga waxaa la dhahaa been fakatay run ma gaarto. been fakatay run ma gaarto ayaa la dhahaa. number 2, tan labaad ee aan qaadanayno waxay leedahay the shouting one never loses. the shouting one yacni qofka qaylada badan never loses weligiisa ma khasaaro. marka tanna waxay u dhigantaa mahmaha af Soomaaliyeed ee dhehayso qayliya ma qado. qayliya ma qado ama tolkaaga kuma gabe afkaaga yuusan ku gabin. oo la macnaa haddii maxaa la dhihi jiraa dhibaataysan tahay mise ay gaajo ku hayso iyo tolkaaga markaas aad la wadaagtid inay wax ku qabanayaan, laakiin haddii aad aamusto adigun baa maaragtay meesha gaajo iyo maxaa la dhihi jiraa daryeel la'aan uga dhimanaysid. okay, mahmaha saddexaad a filled stomach calool buuxdo. a filled yacni buuxdo waaye. stomach calool buuxdo does not sympathize yacni uma calool jilecdo with an empty one mid eber ah. marka mahmahda ku aadanna waxay tahay calool dhergan kama naxdo calool baahan. saasoo kaleeto marka number 4 ama mahmahda afraad aan soo qaadanayno waxaa leeyahay a fire lit by a hypocrite burns a pious man. a fire dab lit by uu shiday a hypocrite munaafiq burns waxaa ku gubtaa a pious man yacni nin wanaagsan oo mu'min ah. marka dab munaafiq shiday waxaa ku gubto mu'min ayaa ku gubto. saasoo kaleeto waa mahmahda haddii aan af Soomaali ahaan u dhigno a fire lit by a hypocrite burns a pious man yacni dab munaafiq shiday waxaa ku gubto mu'min. number 5, tan shanaad if you don't attend no one else will. if you don't attend haddii aad xaadiri weyso ama adiga aad maaragtay isgeyn weydo meel yacni lagaaga baahnaa no one qofna else kaleeto will yacni kuma xaadirayo. haddii aad meel adiga laga baahnaa aad xaadiri weydo qofna kuma xaadirayo. taasoo macnaheeda tahay amaba mahmahda af Soomaaliga ku aadan ay tahay nin maqan siciis dibidhal. nin maqan siciis dibidhal yacni meel haddaa ka maqan tahay cid kuma taliso ma jirto. number 6, human beings are never without a fault. human beings bini aadanka are never weligood ma ahaanayaan without a fault kuwa ah qalad la'aan. yacni bini aadanka ma ahaanayo qof kuwa maaragtay qalad la'aan ah. taasoo maaragtay u dhiganto bini aadam dhaliil ma waayo. bini aadam dhaliil ma waayo yacni wax unbaa maaragtay si ka ah. number 7, mahmahda toddobaad in a war sons are killed but none are born. in a war dagaalka sons wiilasha are killed waa lagu dilaa but none laakiin mid wiil yacni ka mid ah ama wiilna ama qofna are born yacni kuma dhasho. taasoo macnaheedu tahay dagaal wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho. number 8, the world is like a shadow. the world adduunka is like a shadow waa sida harka ama hooska oo kaleeto yacni taasoo la macno tahay amaba u dhiganto mahmaha Soomaaliyeed ee ahayd adduunka waa geedka labadiisa har oo kaleeto yacni. number 9, a liar will call as witness either one
who is dead or far away. A liar beenaalaha will call wuxuu u yeeranayaa as witness markhaati ahaan wuxuu u yeertaa either mid ka mid ah one who is dead qofka dhintay or far away mise fog. taasoo la micno ah beenaale wuxuu markhaati gashtaa qof dhintay iyo qof meel dheer jiro. Number 10, the restless foot comes across trouble. The restless foot waxaa la cagti yacni nasan weydo waa restless yacni nasashalaan waaye. footna waa cag. comes across waxay ka hor imaataa trouble yacni dembi amaba dhibaato. taasoo la micno ah cagtii maxaa la dhihi jiray nasan weydo ama cagtii soo joog laga waayo meesha iga raali noqda. cagtii joogsan weydo mar bay ceeb la kulantaa ayay la micno tahay. the restless foot comes across trouble. cagtii joogsan weydo mar bay ceeb la kulantaa. marka saxaabtina fahanteen aan filayaa. if you don't understand haddii aad meel fahmi weydeen please ask me in your commentiga igu soo weydiin insha allah. so I wish you the best. Have a nice day and please never ever forget to subscribe and share with your friends so that they also take advantage of these precious lessons. Thank you.